عقبدي saddexaad waxay ahayd fear of failure inaad ka baqdid inaadan guuleysan ama khasaartid seebaa taas uga bixi kartaa saddex shay baad uga bixi kartaa number 1 waxa weeye redefine failure as a learning experience aslan kelmadda failure ama khasaaro inaad macnaheeda bedeshid weeye way dadku waxay moodayaan failure waan khasaaray waan baaba'ay faa'iido ma lihi khalaas halkaasna ku dhamaatay no ma aha saas waxa weeye failure 10 baan qaatay khibrad baan qaatay fikradaas maskaxdaada hadday ka dhaadhacsan tahay waxaad aaminaysaa in wax kasta aad qaban kartid haddaad ku khasaartidna khasaaro ma aha waa learning experience waxbaad ka baratay khibrad baad ka qaadatay wixii so taa haddaa maskaxdaada gelisid if you redefine the word and you change it and mindsetkaaga maskaxdaada aad bedeshid waxba uma aadanaysid khasaaro alla first waxaa odhanaysaa muslim baaba tahay qadar allahu maa shaa facal ilaahay iguma talagelin may socon labo waxbaan ka bartay khasaaro maaha markaas number 2 waxa weeye set a realistic expectation yani don't aim for perfection haddii aad wax kasta perfect ka dhig dee waxa kugu dhacaysa quus laakiin waxyaaba macquula aad samayn kartid waa inaad samaysataa si aadan uga baqan inay arrintan kuu socon number 3 waxa weeye celebrate small wins to build confidence taana markaan ka sheekeeyey hooyanimadan markay ahayd waa anigii inii sheegay oo markaan soonkaygii dhameeyey waa anigu soo yar casuumay because you need to celebrate small wins waxyaabaha yaryar guusha yaryar haddaad ku farxi weydid dee horumar saa'ida ma gaaraysid waayo waxaad tahay qof daalan uuna maanta dhan doonaya inaad perfect noqotid oo toos noqotid markaad wax guul weyn gaadhid oo $1,000 $2,000 $5,000 $10,000 qaadatid unbaad farxaysaa no $50 hadday kaa soo gasho youtube-ka waa inaad farxda anigu waxba igama soo geli ilahay baan ka rajeynayaa laakiin de waa inaad ii daawatid ila anigu cilmi baa in la qaybsanaya waxbaa inii sheegayaaye dee idunkuna ii daawada asxaabay